السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة بدن وسلامتين مركزتو دنو دافيدا كجوكتان كسو دوادا برنامج كينا حوغا داسون انت بدن برنامج كان وحان كل فقرنا حوغا مركز ناقا قرسان سيدا دراد أصحاب قيمة بدن انت برنامج كينا وحان كل فقر دونا طبعا فيلم يبولد كسو ودان لكن أصلاحانتو دي كسو قاتين دنكاسي كونفور هندية سيدا دراد صاحبة قيمة بدن انت برنامج كينا قدو جين وحا ايدن كعوصنا in muuqaalkana la gaaraya 100 like in la gaarsiiyo taasna anagana way nagu dhiirigelinaysaa kusoo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horeysa aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment nagu reeb asxaabta qiimaha badan sida hadda aan ka warqabna shirkadaha dhankaasi gudaha dalka Hindiya ka jira hadda waxa ugu awood badan dhankaasi koonfur Hindiya shirkadaha ka jira haday noqoto Tamil Telugu Malayalam dhammaan shirkadaha dhankaasi koonfur Hindiya ka jira waa shirkada ugu awood badan waqti xaadirkan fanka Hindiya inkastoo hadda inta badan koonfur Hindiya lagu dilaa magaca Bollywood lagu dilaa laakiin hadda ogaada daawadayaasha qiimaha badan shirkada ugu awood badan gudaha dalka Hindiya waa dhankaasi koonfur Hindiya maadaama ay haystaan film sameeye classic sida waxay haystaan ninka lagu magacaabo SS Rajamouli Shankar sidoo kale waxa ku jira ninka lagu magacaabo Kortala Sifa ka marna director kale lagu magacaabo Sandeep Reddy daawadayaasha qiimaha badan ogaada inta badan aflaanta Bollywood ka sameeyaan waxa laga soo min guuriya dhankaasi koonfur Hindiya aflaanta laga leeyahay sida daraadeed maanta barnaamijkeena waxaan kula fogari doonaa 10 film ay soo wadaan Bollywoodka laakiin sheeko ahaan laga soo qaatay dhankaasi koonfur Hindiya waliba aflaamo classic aan wada naqaan ayaa laga soo qaatay bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa filimka koowaad asxaabta qiimaha badan film lagu magacaabo Vikram Vedha ay Bollywoodka soo wataan filimkan waxa hogaamiyalka Hrithik Roshan Saif Ali Khan sidoo kale hadda duwistiisa way socotaa ma ogtiin daawadayaasha qiimaha badan filimkan hadda ay Hrithik iyo Saif Ali Khan duwista ku wadan in laga soo qaatay dhankaasi koonfur Hindiya qaasatan fanka loo yaqaan koolad uu ka dhisan yahay dhankaasi Tamil asxaabta qiimaha badan filimkan Vikram Vedha soo koonfur Hindiya waxa sameeyay labada jilaa ku xifaaltamay waa Arma Dhafaan iyo Vijay Sabtabatu sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkan Vikram Vedha waxa soo iibsadeen Bollywood haddana waxa sameynayaan Hrithik Roshan iyo Saif Ali Khan waliba ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan wuxuu kabtiisa gashan doonaa Vijay Sabtabatu sidoo kale Saif Ali Khan wuxuu qaadan doonaa doorkii Arma Dhafaan taasoo ka dhigan filimkan Vikram Vedha hay'adda Bollywood ay soo wadaan sheekaan waxa laga soo muungur dhankaasi koonfur Hindiya waliba isla magaca ayuu wataa filimka labaad asxaabta qiimaha badan waa film lagu magacaabo Dhurfangal sidoo kale filimkan waxa laga leeyahay dhankaasi koonfur Hindiya waliba hadda Bollywood ayaa soo qaateen magacana waa laga bedelo xaloo bixi magaca Sanki ayaa loo bixiyay waliba waxa waxa jilaaka ama hogaamiyka wiilka lagu magacaabo Faran Dhawan sidoo kale waxa kula jirto atrishada lagu magacaabo Barineti Jabra sida daraadeed filimkan asalaantiisa koonfur Hindiya ayaa laga soo qaatay haddana shaqadiisa way socotaa filimka saddexaad waa film lagu magacaabo Hit sidoo kale filimkan Hit waxa la daawa sanadkii aan ka soo gudubnay 2020 waliba wuxuu noqday blockbuster taariikh ayuu noqday hadda asxaabta qiimaha badan filimkan waxa sheekay aan soo iibsatay Bollywoodka waliba filimkan waxa sameyn doon ninka lagu magacaabo Rajkumar Rao waliba asxaabta qiimaha badan isla magaciisa filimkan Hit ayuu wataa taasoo ka dhigan inta badan aflaamta dhankaasi Bollywoodka ay soo wadaan in sheekaan laga soo min guuri dhankaasi koonfur Hindiya filimka afraad waa film lagu magacaabo Kathy filimkan asxaabta qiimaha badan waxa la imaan doona Ajay Devgan sidoo kale filimkan waxa laga soo qaatay dhankaasi koonfur Hindiya filimkan markaan fiirno farinahan wuxuu iskugu jira action iyo comedy iskugu jira shactiriyo action iskugu jira sida daraadeed Ajay Devgan ayaa filimkan soo iibsaday asaas sameyn doona inkastoo filimkan lagu magacaabo Kathy natiijahan box office-ka oo ku fashilmay sida daraadeed Ajay Devgan ay markaan soo buluda sameyn doona sidoo kale filimka shanaad waa filimka caanka lagu magacaabo Jersey Ya Salaam filimkan uu ku xareekay ninka lagu magacaabo Nani sidoo kale inta badan uu kaga oosiyay dadka daawanaya aflaamta jecel markaan kabta Nani waxa gashan doona ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor waliba filimkan waxa la daawan doona dhamaadka sanadkan 31 bisha December ayaa la daawan doona haddana uu diyaarsan waxa la rajayn doona goor dhow xayeysiin sameyntiisa ama promotionkiisa inay bilaaban doonto filimka lixaad waa film lagu magacaabo Ratsan filimkan asxaabta qiimaha badan waxa jira doon ninka lagu magacaabo Akshay Kumar waxaana kula jirto atirishada lagu magacaabo Rakul Preet Singh sida daraadeed filimkan koonfur Hindiya ayaa laga lahaa markaan asoo Bollywood waxa sameyn doona superstar lagu magacaabo Akshay Kumar sidoo kale filimka toddobaad waa film lagu magacaabo Soraru Badru filimkan yaa ilaaw karo superstar lagu magacaabo Surya Wacdaraho ka dhigay waliba xitaa dalka Hindiya sanadkii 2020 waxa u dursadeen Oscar-ka inuu ku matalo markaan daawadayaasha qiimaha badan filimkan Bollywood
ayaa soo iibsadeen sidoo kale waxa la rabay inay sameeyaan ninka lagu magacaabo John Abraham iyo Rick Roshan laakiin gabi ahaanba hogaamiyaashaas way ku gacan saareen laakiin markaan filimkan waxa gacanta ku dhigay superstar-ka sidoo kale ninka waan madaalaha lagu magacaabo Akshay Kumar ayaa sameyn doona filimkan asoo Bollywood sidoo kale ogaada filimkan waxa maalgelin doona isla Suuriya maadaama qaybta hore asoo u maalgeliyay filimka sideedaad waa filim lagu magacaabo Alaaf kunta barmalo sidoo kale filimkan daawadayaasha qiimaha badan oo blockbuster-ka taariikhi noqday sidoo kale suldaanka lagu ninka stars Allu Arjun filimkan lagu amaanay sidoo kale kabti Allu Arjun markaan waxa gashan doona wiilka lagu magacaabo Kartik Aryan filimkan Bollywood asoo sameyn doona waliba magac wax loo bixishay Zeda ayaa loo bixadana duwistiis waxay ka bilaabatay dhankaas iyo Delhi ay duwistiis ka bilaawatay filimka sagaalaad asxaabta qiimaha badan waa filim lagu magacaabo Aniyan filimkan daawadayaasha qiimaha badan waxa laga leeyahay dhankaas iyo koonfur Hindi waliba waxa director ka Shankar isla qaybtii koonfur Hindi waxa agaasimi doona isla Shankar waxaana hogaamiye ka wiilka lagu magacaabo Ranveer Singh ayaa filimkan hogaamiye ka sida daraadin asoo Bollywood waxa sameyn doona ninka lagu magacaabo Ranveer Singh filimka ugu dambeeya waa filimkii classic film kalama aanay waa filimka lagu magacaabo Master ya Salaam filimkan waxa ku xareeyay horaantii sanadkan ayaa la daawaday waxaana ku xareeyay superstar lagu magacaabo Talavi Vijay waliba waxay ku xifaaltay ninka lagu magacaabo Vijay Sethupathi sida daraadeed filimkan asoo ban India min tuli magaalo laga daawan doono waxa sameyn doona mega sarka ugu awood badan waqtigan fanka Hindiya waa dhankaas Bollywood qof kale ma aanay waa ninka lagu magacaabo Salman Khan ee filimkan soo iibsaday asoo ban India ayuu sameyn doona sida daraadeed daawadayaasha badan maxaa ka leedin 10kan film ay koonfur Hindi leeyihiin sheek ahaan waxa soo iibsadeen dhankaas koonfur Hindi waa laga soo qaatay Bollywood ayaa soo qaatay markaan ayaga Bollywood ayaa la sameyn karaa daawadayaasha qiimaha badan sambal ahaan waxaan dhigi karnaa fanka Bollywood wuxuu ku tiirsan yahay fankaas loo yaqaan koonfur Hindi maadaama inta badan aflaamta classic ay ka soo qaataan sheek aan ay ka soo qaataan dhankaas koonfur Hindi ogaada saaxiibada qiimaha badan inta badan 9-maadkii 8-maadkii ilaa 7-maadkii waxa xoog madnaa fanka loo yaqaan Bollywoodka inta badan koonfur Hindi waa iska yeesi jiray laakiin sida loo soo galay qarnigan cusub fanka dhankaas koonfur Hindi sarkac weel ayuu sameeyay sidoo kale inta badan waa lagu xoo maadaama superstar iyo sidoo kale jilaayaal in bacaadina aan action lagu gaar karin ay soo baxeen inta badan Bollywoodka aflaamtiisa waxa loo qiyaas inta badan aflaamta Bollywoodka ay sameyn jireen waxay ahaan jireen classic inta badan director caalami ah haysta inkastoo marka dambe directoradii ay haysteen ay ka duqoobeen inta badan director hadda ku soo haro waa Farkortores inta badan directorada wax sameyn kara laakiin hadda fankaas iyo koonfur Hindiya waxay haystaan director classic sidoo kale jalaayaal superstar in badan caadi ay haystaan sida daraadeeda waa qasab inta badan aflaamta classic ka noqdo dhankaas koonfur Hindiya inay Bollywoodka ay soo iibsadaan ayagoo fariintooda ay ban India tahay ay sameeyaan sida daraadeeda asxaabta qiimaha badan waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena xogaha daasan maanta diirada ku saareen 10 film in laga leeyahay dhankaas koonfur Hindi ayagoo ban India la sameyn doona kan Bollywoodka fadlan haday taa markay kugu horeysa soo booqanaysa channelkeena waxaan ka codsanaynaa subscribe noo saarta sidoo kale hayloowina muuqaalka like noo saarto aragtidaada comment noo qoro hadaa kamid saaxiibada hore noola joogay waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan share raado si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biiraan intaan barnaamijkan barnaamij lamid saaxiibada qiimaha badan ku kulmeyno sidaas iyo amaan Allah assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.